Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Alxamdulilah, ugu horeyn alla ayaa mahad iska leh. Ugu horeyn horta Somali Sarif website-kan hadda dad badan lacag ay ka sariftaan, sidoo kale lacag ay la baxaan. Website-kan waxaa waaye lacag ay dadka soo dhiganayaan wayna la baxayaan. Tusaale, qofka Bitcoin oo soo dhiganaa deposit soo taabanayo, hadhowtina withdraw taabanaa soo EFC Plus ahaan ula baxayo, ama deposit taabanaa EFC Plus soo dooranaa oo yacni local payment iyo waxay kala yihiin crypto payment. Okay. Horta website-kan waxaa dhisay aniga ayaa dhisay. Waxaana aqoontan isoo barin waa dugsiye ama Ustaad Xamuuda. Ereyga Ingiriiska kaliya aan uga xasuusto waa how is called that marka cashirka noo sharaxay saas dhihi jiray. Marka horta intaan meeshaas gudbin horta taariikhdayda, aniga horta ma ihi qof iskuul dhammeeyay, jaamacad iska daa. Iskuul waxaa ugu baxay form 3. waxaa internetkan mar walbo rajo ka lahaa. Internetkan dhanka waxyaalahan iyo dhanka lacag sameynta iyo waxaan kusoo biiray 2019 2020. Waxaan isku dayay inaan website-yadan noocyadan ah inaan yacni aan barto. Waxaa kasoo bilaabay WordPress meelaha koorsooyin ka iibsadaa jirto. Koorsooyinka markaa iibsaday waxaan u maleyn jiray WordPress inaa coding ani qoraayo, gacantii ku qoraayo, website nooca rabaa dhis karo. Laakiin sidaas ma ahan. WordPress wuxuu ahaa template wax la soo iibsanaysaa, wax qof kale soo sameeyay aad soo iibsanaysaa, kadib ayaa website aan u dhiganaysaa. Xitaa website-yada exchange-ka xataa iyadoo lagu sameyn karaa WordPress-ka sida waxaan oo kale. Okay. Dhanka kale sidaas u soo socotay waan ku daalay, waana ka tagay WordPress. Waxaan isku dayay inaan barto HTML Hypertext Markup Language laga soo gaabiyo, CSS Cascading Style Sheet, JavaScript sidoo kale. Waxaalahaas inaan barto isku dayay. Run ahaantii markaa yacni in waxaan wax online kale ka bartay Ustaad Xamuuda iyo dugsiga ayaa aad u mahadsan. Allah ajra ka siiyo. Midda kale maxaa la dhahaa, waxaan u maleyn jiray HTML iyo CSS iyo JavaScript kaliya marka qofka barto inuu waxyaalaan dhisi karo, laakiin saas ma ahayn. Hal mar horta dugsiga aan booqano. Dugsiga sida ujeedaan waa kan. Ugu horeyn horta Ustaad Xamuudana waa kana qof wax soo baray, aad u mahadsan yahay. Waxaan iibsaday koorsooyin ah HTML, CSS, PHP. mar walbo yacni inta Ustaad Xamuuda soo gaarin meeshaan soo gaarin meelo badan ayaa jirto xitaa online. Ani ma ihi qof Ingiriis sidaas u kasayo. Xitaa waxyaalaha luqadda Ingiriiska ku baxaan xataa waa iibsan jiray, sida Udemy ayaa koorsooyinka iibsan jiray, laakiin ma aanan fahmaynin, lacag la iga khasaari jirtay. Ma fahanteen? Sidoo kale Soomaali xataa way jirtaa aan ka iibsaday, si fiican wax kuu fahamsiinaynin, kaliya HTML CSS kuu sharxayaan, lacag $10 ama $20 ka qaadanayaan. JavaScript xitaa luqadaas si fiican oo saas ay kuuma sharaxayaan. Runtaa fiican waa kusoo daalay meelo badan. Ma fahanteen? Waa kusoo daalay. Sidoo kale xataa dugsiye iyada naftirkeed waxaan ka iibsaday magaceedii intaanan qaybta full stack development oo yacni membership-ka full stack development intaanan u gudbin. Waxaa jirta qayb oo sanadkii la furo intaanan u gudbin. Qaybtaas waa markaan ku biiro markaan guuleystay. Waxaa jirta xitaa meeshaan waxyaalaha aan ka iibsan jiray. Koorsooyinka xagga intoo ustaadka uu ka saaraya maleynaa uguma jeedi. PHP, HTML iyo JavaScript ayaan iibsaday. Ayaga naftirkooda xitaa waan ku daalay, ma fahanteen? Iyo Flutter mar walba saa uuna noqonay maalin walba sidaan wax u baro dhahay xataa waan ku daalay. Ma fahanteen? Sida waxa ani u fahamsanay iyo sida wax u jiraan isku mid ma ahaynba.
aniga waxaan umaleynayay markaa la barto HTML CSS JavaScript PHP waxaas markaa la barto inaan website nooca walba aan rabo aan dhisi karo, sidaasaan umaley jiray. Marka 2025 bilowgeedii bishii koowaad Ustaad Xamida wuxuu furay qayb online mentorship oo full stack ah, waxaa ku baranaysiin oo dhahay bilow ilaa iyo dhammaad. Qaybtan waaye in bilow iyo dhammaad membership meel ay jirto horta aan fiiriyo, waxaa dhahay mentorship sidaan ay tahay. Marka bilow iyo dhammaad waxaa ku baranaysiin full stack development HTML iyadoo laga bilaabayo. Markaas ayaan go'aansaday inaan isku dayo inaan ku biiro full stack oo yacni full stack development yan. Hadda way xiran tahay sida ujeedaan, sanadkii ayaa mar la furaa. Markaas waa ku biiray anigoo mar walba is dhiirigelinayo, inkastoo aan garan jirin yacni aan si fiican xataa u aqoonin Ingiriiska. Ustaad Xamuud af Soomaali ayuu igu sharxay wax walbana, sidaas mar walba su'aalay ii diri jireen wixii yacni liisii baro, su'aalay yacni isii diri jireen. HTML-na anoo access-keeda imtixaankeeda ka bixinna imtixaan kale ma iisii gudbi karin ama koorsada kale iima fasaxi jirin sida CSS oo kaleeto. Marka sidaas u socotay ugu horeyn full stack development waxaa ku noqday 9 bil. Xitaa yacni ma aanan dhameynin, ma fahanteen, ma aanan dhameynin full stack development-ga oo Ustaad Xamuud sida waxaan uga baxay dhanka Next.js cashirkeeda dhammaadka access soo diray oo dhahay access-ka ha laga soo shaqeeyo adoo isticmaala luqado aan weligay meeshaan yacni aan idin soo baran idin sheegin sida Prisma iyo kuwa kale oo hadda xasuusta, laakiin Prisma zaaid u xasuustaa. Marka access-kaas taski app waa taski amlootay waaye, taski app website aan loo soo diyaar dhahay ama website nooca rabtid soo samee. Markaas ayaan go'aansaday mar walba 9 bil si su'aalo leh access la u galay waxaan go'aansaday siteedka sidaan u dhahay taski app-ka website oo caadi ah inaa waqti ku lumisid ayaa fiican. Website-ka Somali Serif haddaa aragtaan, website-ka Somali Serif evel wuu shaqeyn jiray, laakiin koodka ani ma aanan qorin, meelaha online-ka ka soo iibsay lacag lii qaadi jiray. Ma fahanteen, hal shay aan bedelayo waxaa lii qaadi jiray, hal shay bedel dhaho $50 $100 keen soo tuura lii leeyahay. Sidoo kale hadda Somali Serif sida u dhisay qof ay ii dhis dhahay waa tijaabinayay, wuxuu dhahay bishiiba $4000, waxaana laga yaabaa inaa sanad ay qaadato Somali Serif inaa la dhiso. Waxaana bishiin waxaa dhiibi $4000 iska dhaafe $1000 iska dhaafe $100 xataa bishii ma aanan dhiibi karin $200 xataa. Marka hadda alxamdulillah wixii anaa gacanta ku samaystay, alxamdulillah wixii anaa gacanta ku samaystay Allah ayaa mahad iska leh. Midda labaad waxaad mahad iska dugsiya team dugsiya ayagaba Ustaad Xamuud isagoo ku jiro asaa ugu weyn meesha yacni. Sidoo kale waxaa jirto dad kale oo isla teamka oo yacni maamulyaal ah sida ma xasuustiba, laakiin waa hilmaamay. 2 qof zaaid wejiyadooda u xasuustaa, laakiin waa sii hilmaamay. Cumar Tuut iyo ninkoo kale asina GitHub-kana asina meesha ku sharaxa. Sidoo kale GitHub soo u shaqeeyay baray, inkastoo magacyada aan xasuusanin. Dugsiga waxay ugu dambeysay 4 bil ka hor, markaas Somali Serif inaan sameeyo isku dayay kuma aanan laabanin dugsiga inaan cashar kasii barto, waayo Somali Serif ayaa waqti badan geliyay. Website-kaas sidaan ujeedin hadda sidaan ujeedin waxyaalo badan inaan kusii daro ayaan rajeynayaa. Waxaan igu qaatay sameyntiisa ugu horeyn ismiga hawada soo gelinaya 3 bil. 9 bisha ayaan dhameeyay koorsada yacni Next.js iyadoo ustaadka AI loo sii gudbayo. Waxaan dhahay AI intaadan u gudbin horta gacantaada wax walba isku day, ma fahanteen, waxaan soo bartay inaa wax ka dhisi kartid. Hadda midkan ayaan ka dhisay dhalinyaro badan. Homepage-ka aan tagno dhalinyaro badan ayaana lacag ka sarifadaan, lacag soo dhigtaan, lacagna la baxaan. Ma fahanteen. Sidoo kale waxaa jiro team oo Somali Serif oo ani maamulo oo sidoo kale ayagana ka shaqeystaan. Ma fahanteen. Hadda meeshaan waa ujeedaan lacagii lasoo dhigtay, lacagii la baxay. Halkan uu dambeeyay Matic Mainnet Allah deposit uu sameeyay. Ma fahanteen. Waxaan waxaa waa latest transaction dadka ay sameeyaan, waxaana been ma aan wax ani gacantayda ku sameeyay maahan, waa wax run ah. Ma fahanteen, wax ani gacantayda ku sameeyay maahan.
run waa live waa dad oo soo ku xirnaa jirta tiimka oo si aan lacag kusoo dhiganayo oona la baxayo. Anana si live ayni tusi doono lacag aan usoo dhiganayo oona la baxayo. Somali sarif waxa waaye sarifka qofka lacag uu soo dhiganaa lacagta kale uu rabo la baxaa shaqadiisa waa sidaas. Sidoo kale waxaa jirta qayb oo tiim ah ayakana lacagaha waxa waaye dhan waa automatic dhan waa manual qaybta isdaraaba markay tahay waa manual si aan tuugada ugu fogaano. Sidoo kale Hormuud API payment inay siiso yacni Hormuud hadda karaabto API isticmaalaya dhanka depositka laakiin Hormuud API payment weydiistay way ii diiday shati soo keesay dheen anoo $200 ka soo bixiyay ay dheen wax sarif ah uma ogolni. Waan iska dhaafay hadda tiimkii ayaan isla shaqeynaa ayakaasana ka shaqeeyo fahanteen aana lacag ka sameeyo Somali sarifka hadda ujeedin. Ugu horeyn hadda sida ujeedid sharaxaad aan galo halaas waxay ahayd sida waxyaalo badan oo jiro hadda yacni oo aan sheegin waayo taariikhda aan soo maray jab badan waa soo maray. Sidoo kale aan ni xasuusiyo Somali sarif haddana waxaan idin sheegay inuu macalin kasta Xamuud wax isoo baray. Somali sarifkan yacni luqadaha hadda aan ku dhisi la'aantiis hadda isu soo barleen waxba ma dhisi lahayn ma fahantay wax ma dhisi lahayn. Laakiin Ustaad Xamuud website-kan sida loo sameeyo siya ima baran ima dhihin website exchange sameynina ama sidaan sameynina aan dhisayna kadibna dhiso hawada gasho oo ima dhihin deploy garay oo meeshaas ku deploy garay dheeman soo iibso Austin soo iibso midhan. Ustaad Xamuud wuxuu i baray luqadda sida u shaqeyso luqadaha sida Node.js hadda aniga waxaa isticmaalaya database-ka oo ah Prisma iyadoo ku xiran tahay MySQL aan isticmaalaya iyo Next.js. Waxaa la dhan sida u shaqeeyaan page-ka la aadayo app router iyo state management iyo use context iyo waxyaalahaas iyo oo isoo baray luqadaha aqoontii oo isoo baray ayaan hadda midkan ku dhisay. Dadku waxay u maleeyaan koorso inay iibsanayaan maxaa qof dhihi doona lacag haddii dugsiga ku beero wuxuu dhihi doonaa si camal website Somali sarif amnootayda dhisaa ma bujeedii asi ima soo baran nashqadan sidaan loo dhisaa asi ima soo baran asi waxyaalaha uu isoo baray waxyaalahan qaabka deposit-kan button-kan haddii la riixo meeshaas nagey kan haddii saan la yeelo meeshaas nagey waxaa dhan usa isoo baray. Sidoo kale balance ya meesha lagu soo qoraayo yacni database lagu xareynayo balance intaas waxay oo yacni la keenayo la daawanayo la arkayo akoonkan waxa dhan asa i baray. Laakiin ima soo baran shaqada inuu isoo design gareeyay dhiso ima dhihin ma fahanteen. Midda anaa maskaxdayda ka keenay maskaxdii anaa ka keenay maadaama sarif la ahaan jiray ma fahanteen. Haddana waxaan is dhihi karaa full stack development tahay dhanka programming okay qof walba in hadalkay fahmi ayaa rajeynaa. Marka xataa luqada Ustaad Xamuud lacala xataa daa ku biireys courses haddaanan juhdi iyo waqti aan geli karin ha ku biirin waayo wax walba waxay kaaga baahan yihiin juhd iyo dadaal maanaan lacag iyo baxooso maxaa wax bar la-aaday ma ahan runta inaan isku sheegaa baale. Marka wax baranay ani jab badan waa soo maray oo dugsiga xaggiisa markaasuu baranay xitaa waxaa jirta mar tartan la qaban aniga walba project soo diyaaray la dhahay Cumar Tuut oo yacni live waxaa projectii soo diyaarsikan dhahay si qaldan oo u sameeyay ayaa jirta ma fahanteen. waxyaalo badan waa isku qalqalday e-commerce sameynana dhahay si fiican uma garanayna aan ku guuleystay waxaa la dhahay saaxiib tartanka ma ka qayb gali kartid isoo dhisa la dhahay ma fahamno kama qayb gali kartid tartanka xataa waa liiga reebay aan dadka barnaamijyada sameeyeen waa iska daawanay ma fahanteen. aan tartanka waa liiga reebay waayo barnaamijka aan soo dhisay isbuuc ama lama isbuuc soo dhis leedahay ayaan si qaldan u soo dhisay yacni si fiican wax uma fahamsaneen laakiin waan dalaalay mar walba exercise iyo practice aan badiyay sidaas ayaan waxyaalo badan ku fahmay ma fahanteen. hadda marka inkasta waqtigu dheeraaday hadda Somali sarif markii qofka sidaan tahay qof deposit oo taaban kara lacag ma go'aas dhiginaysid hadda ever 45 sent ay u jirto lacagaha waxay kala yihiin hadda dhanka karaabta waxaa ku jirto lacag magaa dhiginaysid waxaa ku jirta 360 oo karaabta ah oo lacagaha mid ka mid ah haysatid taasoo dhigi kartid. Sidoo kale local payment waxaa ula jeedaa EFC Plus Zaad Zahal Jahab iyo waxaalaas ula jeedaa aad kasoo dhigan kartid ma fahanteen. marka EFC Plus ka dhanka tiimka ayaa soo profit gareynaya ayagana sidaas faa'iido ugu sameynaya dhankan karaabtana waa automatic API ku xiran anina fee ma goosto laakiin automatic lacagtan oo yacni karaabta payment aan ku dhufano.
qofka bitcoin oo soo dhigana USDT soo dhigana Tron oo soo dhigana lacagta automatic balance iyada ay u generate gareynayso ama u exchange gareynayso hal meel ay balance isku tagayaan ma fahantay hal meel ay balance isku tagayaan bitcoin oo soo dhigini wuxuu noqonaa lacagta USDT ay noqoni dollar aan ay noqoni midaas la soo hadda meeshan aan taabto select inkastoo hadalka dheereeyay waxaan karaabto ayaa ku jirta dadka qaar ay fahamsaneen video meeshaas u dhigay yani nooca karaabtada ay rabaan dadka ugu jeedan sawirada inay kala duuduweyna laga yaabaa ma fahmino videogaas u dhigi way daawan karaan okay hadda waxaan rabnaa bitcoin inaan lacag soo dhigano akoonkii oo karaabto meel aan kuleeyahay lacag igu jirto oo inaa meeshaas kasoo bixi halkaas Somali sarif soo dhiga aan doonayo okay bitcoin aan ku qoraa halka ugu horeyn bitcoin aan rabaa inaan ku bilaabo iyo lacago kale aan kusii xiji doonaa iyada kaliya ma ahan tusaale uma soo qaadan doono bitcoin aan ku dhufanaa amountii halkaan aan ku qoraa inta akoonkii ku jirta soo fiirina akoonkii karaabtada lacagahan oo ku jiro inaan Somali sarif u wareejistaa rabaa midaas la socda bitcoin-ka waxaa igu jirto ewer dhibic yani 3.24 inay ii dirmi doontaa rajeyna insha Allah $3 meeshaan aan ku qoraa lacagta bitcoin-ka waa tan soo koobi gareena inkastoo minimum-ka ay kala duuduwan yihiin lacagaha la dhiganayo haddii bitcoin-ka intaas ma soo dhigi karta la dhaho USDT aad dooran doonaa insha Allah sumida dhaha asaa jawaab soo sii doona okay automatic oo ii aqbalay hadda marka midkaan koobi dhahaa adresska koobi markaa dhaho halkaan galaa kuwan lacag goosanaya ay kana next ya taawna waxa dhahay balance-gaada kuguma filno fiig ayaa laga rabaa okay maadaama xagga $2 iyo bar nus dollar xataa goos aan dhaho hadda siilaadii kale aan arkaa insha Allah balance is infinite lacag way ku jirtaa balance in wax kuma jira leeyin karaabtada waa iska sidaan lacag rabaan marnaa wala yaa badnaa bal $1 iyo bar aan tijaabiyo $1 iyo bar balance ku jira kuma filna iyo jiraan okay lacag nus dollar ay goosanayeen $2 $3 ay jirtaa $2 xataa iyo lahay marka maadaama inkastoo xagga xataa aan ku qoray $3 iyo maxaan ku qoray $3 iyo wax la jiraan ku qoray dib ma lahan $3 iyo wax la jiraan ku qoray lacagta fee ee goosanaa bitcoin-ka zaid qaali ah $75 waaye waa arkiiseen hadda waxaa diri $2 diri 76 sent iyo goost marmarka qaar saasi qaal u tahay meeshaan $3 aan ku qoray iyada automatic ku turjumaysa ayaa balance ya lacagta saxda aad soo dirtay kuugu dareysa insha Allah okay confirmation ay qaadanaysa bitcoin aad u dheertahay lacagta halkan yani anka ma approve gareen waa automatic API ku xiran automatic si automatic lacagta soo gali doonta insha Allah waa sugi doonaa cabaar inkastoo da waxyaalo badan aan isku sharxo waqti si dheeraanayo pause dhaha ilaa iyo confirmation-ka finishing-ka soo qoraysa suweena guys inta lacagta completed ee ka noqotay success marka inta sana confirmation ayuu sii qaadan doonaa marka intan waa sugi doonaa insha Allah halkan still waiting waa soo mujadan waa suweena marka karaabtada dhanka bitcoin-ka iyada waqti dheer iska qaadanaysa marka waa la iska sugaa insha Allah sidaan ujeeda hadda confirm ee soo qorantay waa sii sugeynaa marka finishing adan markay soo qoranta blockchain waa waxaan finishing markay soo qoranta maga lacagta way soo dhiganta waa macnaheeda waa kana lacagtii hadda waa soo dhigantay hadda dashboard-keena aan ku noqono ama halkan xataa home xataa taaban karaya dashboard-ka na geynaa home-ka waa kan hadda waa ujeedaan sida ujeedaan 2.5 wayna soo gashay lacagtana bitcoin waa ujeedaan waa kana details haddaan kusii dhufto waa kana lacagii dhan inta fee lii goostay waxaalaan waa API automatic u goostay ma fahanteen taariikhda yani xilli la update garay half minutes waaye dalabkan waxaa la sameeyay 6 daqiiqo ka hor xilli lacagta oo noo soo dirna waa kana waxa khidmad oo naal goostina waa kana ma fahanteen marka khidmadan waxaa goostay dhanka API hal iimayleynin inuu Somali sarif goostay dadka qaar sidaas u malay doono ma fahantay dhanka API lacagaha yani iyadoo bitcoin aan soo diray
automatic USDT lagasii dhigi doonaa balanceyaday kuusoo gali doontaa, ma fahamtay? Waxa dhan oo karaabto lacag lasoo baxday halkan aa laiskugu keenaa, kadibna toosa ula bixaysaa. Hadda haddii homeka aan taabto dhankii transactionka oo depositka, waxaan rabnaa bitcoin inaan ka aragno. Anaka inaan ugu dambeyn aan rajeynaa, qof kale ugu dambeynin. Halkan aa laga rabaa inay kusoo qoranto deposit. Aan refresh gareyno aan aragno. Guys, bitcoinka dhanka bitcoinka halkan ma isoo soo saarmin depositka. I don't know, dhankaas databaseka ma aanan ku keedinin, API-ga aan meesha ku xiri ayaa si automatic meesha usoo saara, ma fahmino? Dhanka withdraw laakiin caadi way soo saarmaysaa transactions, elasticity transactions. Waxyaalaha qaar way soo saarmaya, waxyaalaha qaar waxay soo saarmaynin, waxaa waaye database ma aanan ku keedinin. Mida kale halkan aan taabano deposit ma lacag kala rabaa inaad soo dhigto, taas waa bitcoin. Hadda USDT BEP20 inaad soo dhigtaa rabaa, oo taas dadka badanaan ay u badan yihiin, ma fahanteen? oo badanaan dadka u badan yihiin. Hadda halkaana sii taaban doonaa insha Allah. Waxaa dhihi doonaa BSC xataa iska dhaho, Binance Smart Chain aa laga soo gaabi. USDT aan ka dooranaynaa marka. USDT oo Binance waa kana, kan uu hooseeya waa USDT BEP20 waaye, oo dadka badanaan ay isticmaalaan. Okay, kadibna halkan asaa uu raqiisan minaa 200 aa soo dhigi rabaa. Kadibna halkan aa dhihi doonaa submit. Halkan aa dhihi doonaa submit. Hadday bitcoin aa soo dhigtay way ii soo gashay. Haddana USDT lacag dhan hal meel aa iskugu geenaa, kadibna EVC Plus ula bixi kartaa, ma fahanteen? Hal meel aa iskugu geenaa, EVC Plus ula bixi kartaa. Ma ahan karaabta kale sii galayso mar lacagtaada ka nusqaamaysa ma ahan. Somali Sarif side automatic u transfer gareynaa. Waa kana meeshan hadda 200 u jirtaa, yacni ku diri rabaa dhanka Somali Sarif. Lacagta markaan automatic yacni USDT aad u fududahay, marka aad u fududahay dhanka depositka, waqti badan ma qaadato. Marka waa isla arki doonaa insha Allah. Let's go. Send ya taawno. lacagta ay goosto taxta raqiis waxa lagu jeclaadaa siyaas ah. Tii kaloo Toronto badanaan lama isticmaalo, waayo lacageeda qaali ah. Kan ismarkii success soo qortay mijida automatic, yacni waqti badan ma qaadato taas. Okay, halkaa refresh aan dhahno. Okay, 1 minute ka yar inay waxa uu soo gaartaa rajaynayna insha Allah. Okay, imise waqti ay qaadan doontaa? waa ka sendin ay gashay mijida, macnaha lacagta waa la diridii ku jirtaa. Sendin magisi gas hadana yacni waqti yar wax yar kadibna akoonka inay soo gashaa rabaa, ma fahamti? Waa yacni jaakin garan iyo xalaas ku sii wadaan. Marka arkayna lacagtan automatic qof maamulaya ma leh, mijida hadda waa ka ismarkii soo gashay, tan waqti dheer xataa uma baahnaba. waa kana lacagtii oo soo gashay waxa weeye $200 iyo $1 USDT aa loo turjumay, ama soo sorry, USDT aa loo turjumay. lacagta saxda ay soo gaartay waa tan $162, $168 waa $2 ayaa iga go'day, oo dhankan API-ga waaye wax sidaas wax goosanayo, automatic u goosanayo. waa kana commissionka percentage ever dhibe 25 ay goostaan, ma fahanteen? Estimated deposit iyo deposit kan kale. Marka lacagta ay goostaan commissionka waa kana, lacagta ay goostaan magaal soo dardaro, oo lacagta saxda ay soo gaartay waxa 168 USDT hadda 168.94, oo lacagta 99 wax la karimin 6 senti. dhanka homeka aan tagno, kan sina ma soo koray dhankan mise ma aysan soo korin. aan isla aragno bal. Bitcoin-kii hadday aan sugayay hadday soo kortay, oo haatana time ay qaadanaysa ku soo korto. Asan USDT asana oo problem ma leh, oo soo koraa, ma fahmino? waa kaasa Bitcoin-ka hadday aan soo dhigtay way soo kortay. Marka partial waa USDT na shaki kuma jiro, asana waa soo kori doonaa. Lacagta transactions waa sidaas, ma fahanteen? Marka lacagta la bixaysidna idina waa sidaan. Marka lacagta la bixaysid waa sidaan, aan isla aragno.
marka lacagta la bixayso withdraw waad taabanaysaa EVC Plus-kaada ama waxyaalahaas kula bixi karta. Local payment waxaa ula jeedaa EVC Plus iyo Sahal iyo Zaad aa ula jeedaa. Ma fahanteen? EVC Plus kulatay waa kanaa. EVC Plus haddaan doorto tusaale $5 iska doorto, dhankan tiimkii ayaa soo approve gareeya midaas la socda 425 withdraw EVC Plus xataa easy waaye. wixii intaas ka dambeeyo $5 waa la baxday, kaliya waxaa sugaysaa inaa lacagtaada lagu soo approve gareeyo. maana inta sawirka soo qaad iyo kambalo soo geli iyo ma jirto. waa kana employee fees-ka intaas everyday percentage waaye. service fees-kana everyday 3%. wixii intaas ka dambeeyo jaakinay galaysaa iyadana, kadibna caadi nambarkii hadda meesha ku qorata EVC Plus-ka lacagta kugu soo dhacaysaa. ma fahanteen? tan markaa caadi waa sii sugaynaa. waxaa la kale inaad sii sharxaad RJ aad isku sii dayaan intii taas intuu gaarayso. lacagtii horta halkan way ka bixaysaa. lacagta withdraw aan ku sidmay $5 halkan way ka bixaysaa. tiimka markay jaaki galayaan $5 caadi igu soo dhacaysaa. pending waa hadda markii tiimka jaakin hal qof oo tiim ka mid ah distaabto jaakinay galaysaa. ma fahanteen? halkaana waa laga jaray sida ujeediin, lacagta waa laga jaray. okay intii taasna soo gaarayso halka ka kala sii sharxaa. hadda dhanka isticmaalayaasha ilaa iyo 3 qayb waaye. dhan anaa ka maamulo adminka, lacagaha aan kusoo dardaro. dhan tiimkaya ayaa lacagaha ka approve gareeyo. dhanna waa kana macaamiisha ugu talagalay inay ayagana yacni isticmaalaan. ma fahanteen? waa kana marka hadda wax kaloo dhiman ma jirto aan hilmaamay. dhanka adminka iyo dhanka employee iyo ma hore u galay halkaas daatadii ka mid tahay inaan la arkaan diida. dhankaas adminka anima ka maamulo iyo employee oo meesha ka maamulo inaad uu marijinayo insha Allah. so waxyaalo xogyaalo badan oo ku kaydsan ka mid ah inaan la arkaan diidaya insha Allah. inta ayaan ku ekaanaya. halkan history waaye. history aan taawano lacagii badanaan aa soo dhigtay ayaa ka arkaysa halkan. markaas all transactions waxay samaysay dhan waaye halkan. ma fahanteen? marka profile-na profile mtaana sidoo kale xogtaya ku jirto sida emailkeeya iyo waxyaalihii ku jiraan. sawirka daarta iska bedeli kartaa dhanka profile-ka ama daarta saari kartaa. meeshaan feedback waaye. Somali Self waxaa ka aaminsan tahay yacni aad ku dareysaa haddii yacni aada ugu helay yacni Somali Self hore u socda yacni feedback baxsanaysaa hadal wanaagsan. haddii yacni barnaamijkeena aad ka heshay haddaadan ka helin Somali Self waa xuntii waan dhihi kartaa. haddaa ka heshina oo yacni waxyaalo badan ay kaa saaciday oo hore u socda Somali Self. marka aada ayaan bogaadinaa. marka sidaas inaan dhaadan dhiirgelisaan aad baan u jeclaa lahayn iyo aaminaada sidoo kale aad u muhiimsan tahay. marka lacagtan pending-ka sugeynaa maadaama tiimka checking gareynaya. okay meeshaan tabiskan hide show waa dhihi karnaa. okay asxaabta I'm sorry haddaa 8 saac ana muuqaalka duuwayo ciladaas la kulmay. ma fahamteen? haddaan xaliyo marka coding waa iska dhib badan yahay mararka qaar. ciladaasaa fuushay marka waan xaliyey serverka. ciladaan baa oo la kulmay maanta dhan xalisaa waday. marka hadda ugu dambeyn alxamdulilah waa ku guuleystay. marka video yaan noo soconaya insha Allah. meel dhaxa marayni waa gabagabayneynaa. marka asxaabta videoyaasha caadi ii kala dheeraadeen. I'm sorry mashquul anoo aadana isku dayay inaa video aan sii duubo. ma fahanteen? mida kale meeshaan lacagtii aan soo dhigtay waan ka arkayay laakiin dad badanaa lacaga soo dhigtay galaashii ka dambeeyay. 200 aan soo dhigtay kadib waxaan oo macaamiil ah ayaa lacag dhigteen la baxeen deposit iyo withdraw waxaalahaas sameeyeen. ujeedaan lacagtan xataa waa lacag badan ayo dadka ay hijaabkood ku haystaan meel ula baxan ay waayeen ayaa jirta siyaasi ula baxayaan. marka videogan waxaan u talagalay macnaheedu waxa uu soo baray inuu u mahad celiyo. qofkii wax ku baro yacni
abaal weyn waa inaa ugu haysaa. Website-kan Somali Sirifad sidaan u shaqeynayo oo dad badan sidaan u maamulayo. Dhanka EVC Plus-kana waa kana markii lagu soo diro sidaan nambarka lacagta lagu diro iyo xogta sidaan u arkaysaa. Marka sitaatka Xamuuda iyo dadka tiimkiisa aad u mahadcelinaa maadaama aqoontan ay bareen anigoona jaamacad galin igu dadaaleen ma fahmino anina intii tabartay waa dadaali aadaan u mahadsantihiin aad iyo aad alla ka sugo aad u mahadsantihiin alxamdulillah kulli shay insha Allah website-ka sidaan aadana mar walba update iyo waxyaalo cusub inaan kusoo daro rajeynaa. Sidoo kale qaybta jaadka waa kana dadka caawinta rabaan lacagta dib soo daahdo jaadkan la hadli karaan ma fahanteen. Sidoo kale dhanka wisdaraawadi oo dhanka karaabtada ah marka la bixaysid SM code aa lagu diraa sababtoo ah tuugo ayaa jirto oo dadka lacagooda dhacaya ma fahanteen. SM code-kan hada send hadaan dhaho bashqada ii soo dhaceyso $5 hadii la baxaayo kooda bashqada ii soo dhaceyso oo isla markii oo lagu diraa la yiraahdo bashqada dhanka Somnet-ka igu soo dhaceyso ma fahanteen. Wax yar aan sugno waa kaas way soo dhacday koodka waa kaas. Sidoo kale dhiirgelina halkan dadka uu siisiyaa koodka waa kana ii soo dhacay ugu dambeeyay mujadan koodka ugu dambeeyay waa kana Somali Sirif verification code do not share anyone alla koodkan qofna ha u dirin wuxuu doonayaa lacagtaada inoo dhaco shaxaka ayuuna waxaa jirta kuwa shaxaka ayuuna dhaho dadka Soomaalida sidaas ku dhaca kadibna koodka meeshaan gelinaysaa adresska lacagta lagu soo diraa meeshaan gelinaysaa caadi marka lacagtaada siyaasa ku helaysaa oo USDT iyo lacagaha Bitcoin-ka ma fahanteen. Marka jumca wanaagsan koley waxaan ugu mahadceliyo ma garanayo koley dadaal aan sameeyay iyo aqoon iyo dadaal aan liigu sameeyay ayaa waxyaalaan heerkan ku gaaray anoon iskuul dhameynin jaamacad dhameynin dadka qaar waxay u maleeyaan inay jaamacad la dhameynayaan markaas le waxaan dhis karaan haddii noloshaada oo isxoojisid aadan quusanin wax walba oo hamigaada ay baran kartaa waana sameyn kartaa ma fahanteen. Marka halada badan aa jirto aan si ilaawayo oo niyadda ku hayay mar walba yacni istaadka ugu mahadcelis dhahay marka koley good like waqti badan aan fiidiyoon iga qaatay markaan ilaalgelina marka maalin wanaagsan haween wanaagsan dhammaantiin guulaan irijina qabiil waxaa la iska dhaafa noloshiina dhista waxyaalo badan xirfad badan inaad barataan isku daya internetka insha Allah. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.